السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الله علي فرنجيلي يقول لي بون نظافة كيران كشنت الصومالية قبل هالكان أكو قبنايو وحنكو عبريا dareenkayga ku aadan kufsigii ka dhacay 20kii bishii 11 aagacaynabo kufsiga iyo taacadiga loo geysanaya haweenka Soomaaliyeed oo aad mudugayga Soomaalida inay ku soo noqonayaan dhawaanaha kan ama ay ban noqotay wax dhaqan galay iyadoo ay abwaanada shanta Soomaaliya ay ka hadleen wax badan way bismillaahir rahmaanir rahiim indhoweyd bacay leeydi gabay waanigan curine aynabkiyo markii aan fardaha culus ku qaadayo ama aan caraysnahay ayaan col horseeda codan lagu farxin baa kayib aaga caynabo caruuraha la leeyay iyo hablaha lagu cayaarayo warka caawa laga sheegaya waa calool xumo kufsigii cadaan buu noqday iyo caadadoo kale nimayahu cibaarada dhacday ceebta soconaysa aqli niman lahayn iyo ibliis amalkii weeyaan urdin soo baxayo dhigan caaro laga goosan caleenaan adkaan miruhu waa ku cimri guuraane canabaan bislaan badilkaha ku cadaloosheen hilba waxaad aan tuugtaa markaad cuni karaysaa Aisha bislaan dharigu waa kugu canaadaay heeriin waxa loo jantiyo cunigu waaya ciilniman ku dhiman dunidan waa la cajabayaa doqon lama canaanto ee hadaad caaqis mudataane alle iyo waxa kugu darmaabiyo kale dhaqanka iyo caadooyinka caadka laga raac cibaadooyinka iyo diinta waa kala carabeen oo gaaladu casriga ay wadiyo caasib adlay absi bahay iyo xishood kuma cad goostaan cisigiyo wanaagii dhamaa caraf ku saarna calaamooyin baa muuqda iyo cirqan fiicnay adiyadu casaan bay gashay iyo ciro iyo boor nabadii cadaawuna waa wada caweeyaan oo cashadii timaadaba waa aynad gooniya uqubooyinka soconaya calan walaynaya ciqaabaha dhacaya iyo dulmigu cirib mar reebaane dhul gariir carrada taabta iyo ciidda waa halis ambar weeye dumarkeenu iyo caasho iyo luul hooyo caanihii laga jaqaab ku cayilayseeni asraduhuna waa kula dhasheen umir baa tahay aqli gaabka iyo jaahil baan ayma ku gelin codna lagama helo maalintii leys awaansado weligood cashiiriyo tolbay kala cilaalaan waa inay abwaanadu curshaan cariyo suugaan casharada quraanka iyo hadii curuf daweynayo culimooy ka hadal falku waa ay wareegsamay